bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada kooraskeenan wuxuu ku saabsan yahay barashada aasaasiga luuqadda CSS oo ah luuqadda webpage-da ama bogagga wax ka bedeshaa hadday tahay midabada hadday tahay qurxintooda oo dhan. kooraskan waxaa lagaga baahan yahay si aad u baratid dhowr waxyaabood oo kala ah inaad taqaanid basic computer, inaad taqaanid luuqadda ka horeysa CSS ee HTML oo ah aasaasiga bogagga oo dhan. haddii aad HTML aqoon fadlan waxaa ka booqan kartaa website-kayga SomCoders. waxaa ku jira kooras basic ah oo HTML ah. kooraskaasaa soo dulmaraysaa oo soo baranaysaa marka hore. inaad computer haysatana waa muhiim waayo practical fara badan ayaa ku jira kooraskan. haddaadan practicalka sameyna kooraskan muhiimadii aad ka lahayd ma gaadhisid. sidoo kale inuu kugu duumaya text editor computerkaaga. text editor markaynu ka hadlayno waa fahmaysaan sida wordka maaha, laakiin kuwa koodhka lagu edit gareeyo wax lagaga bedelo sida notepad++, sublime text way fara badan yihiin. iyo inagu kaynu isticmaali doono oo aan idinku tusi doono casharkeena dambe sidee loogu duba text editor. maxaa ku baranaysaa kooraskan ama aad naga rajaynaysaa? waxaad ku baranaysaa asaasiga luuqadda CSS. luuqadda CSS aad bay u fara badan tahay, laakiin inta aad is leedahay markan website yar oo dhammaystiran baa ku samayn kartaa ayaan eegaynaa. waxaanu baranaynaa sida loo dhiso bogagga ama website dhammaystiran responsive ah, website oo mataqaanaa marka responsive lagu leeyahay ku shaqeynaya shaashadaha kala duwan isku si ugu soo baxaya. marka mobile laga galo qaab mobile soo baxaya, marka laga galo computer si ballaaran soo baxaya, marka laga galo tablet si kale u soo baxaya oo qof walba fahmi karo. waxaa kaloo ku baran doonaa waxyaabaha aad uga baahan tahay inaad ku ogaatid web development. maadaama doonaysid inaad web developer noqotid waxaa jira tools fara badan aad u baahan tahay oo aad isticmaalaysid. marka waxyaabahaas oo dhan ayaynu ku eegaynaa. insha allah kooraskan haddaynu dhammayno qeybtiisa kale waxaynu ka dhigi doonaa isagoo backend leh oo aynu ku xidhino luuqadaha serverka sida ama ASP, PHP oo markaa aynu ka dhigano website dhinac walba ka dhammaystiran frontend iyo backend. laakiin kooraskan wuxuu muhiimadiisu tahay frontend oo ah qofka userka intuu arko. aniga kooraskan la socodsiinaya magacaygu waa Cabdifataax Cabdilaahi. waxaan in badan kusoo dhex jiray web development, bogag fara badan iyo webs ayaan sameeyey oo ku mid yahay website-kan casharada aad ka dalacataan SomCoders. waxaad igala soo xiriiri kartaa usernameska Facebook, Twitter. haddii kooraska wax kaaga adeeg yihiin waxaad nagala soo xiriiri kartaa info@somcoders.com ama SomCoders website-keena /madal oo kuu soo baxayso qaybta forumka ama meesha laisku widaarsada su-aalaha. intaas waa introduction ku saabsan kooraska. haddaynu guda galno kooraska maxay tahay CSS waxaa loo soo gaabiyaa cascading style sheets. si fudud aan idinku sharaxo waa koodh aad u isticmaalaysid inaad boggaaga naqshadiisa wax ka bedeshid. mar walba waxaanu isticmaali doonaa ereyga naqshad si aynu markaynu doonayno style ka hadalno si aad ii fahantaan. naqshaduna wax kale ma aha, waxa weeye inaad bogga HTML-ku waa skeleton systemkii, laakiin CSS-ku waa qurxintii oo qaabeyshinkii oo dhan weeye. haddii ay tahay midabka farta, backgroundska ka dambeeya page-ka, waxyaabahaas oo dhan. haddaad su-aalo dhowr ayaa isweydiinaysaa markay CSS kugu soo dhacayso. CSS marka waxay kaaga jawaabaysaa su-aalahagan oo ay ka mid yihiin sidee qoraalka website-kaygu u yeeshay midabo kala duwan, sidee website-kaygu uga soo kala baxayaa shaashado kala duwan oo aynu ka hadlayno responsive web design, iyo sidee u dhisi karaa bog haddii aan aqaano HTML. dad badan baa waxay isku khaldayaan HTML website dhammaystiran ma ku dhisi karaa. CSS su-aalo noocaas oo kale isweydiinayaan. haddii aad aqoon hore u lahayd CSS tan waxay ku noqon doontaa mid oo practical ah oo aqoontaadii kor u sii qaadaysa. haddii aadan hore u aqoon oo HTML kaliya taqaanina aad bay labaduba ku anfacayaan. intaas ayaynu introduction kaga baxaynaa. wabilaahi towfiiq. casharkan waxaynu ku qaadanaynaa sidee loogu dubaa text editor. text editor marka lagu leeyahay waa barnaamij kuu fududeynaya inaad koodhkaaga u qortid si fudud, kaasoo kugu sameynaya syntax highlighting oo farta midabo kala duwan kugu yeelaya si aad u kala socday koodhka. sida wordka kale maaha, laakiin barnaamij ka gaar oo coding lagu talagalay. way fara badan yihiin sida u taqaanin text editorsku. kan aynu isticmaali doono practice shirkadda Adobe ayaa soo saartay. kan kale sublime text isaga aad buu u fiican yahay fast. kan waxaynu isticmaalnaa waxaynu ku doorbidaynaa wuxuu leeyahay wax la dhaho live oo waxaad bedelaysa ayaa toos soo arkaysaa. marka download ayaa dhahaysaa website-kiisa waa kaa practice.io. download marka tiraahid wuu soo degayaa, kabacdi waa ku duubaysaa. markan aniga waa kan practice. okay, double click ayaan siinaynaa. shaashad noocan oo kale ayaa kuu soo baxaysa. waxyaabaha muhiimka ah inaad ogaato waxaa ka mid ah
halka ay geeska wuxuu ku leeyahay wax la dhaho live preview oo waxa bedelaysa ayaa toos u arkaysaa intaan live preview gelin maadaama aad baranaysid luqad cusub oo CSS ama aad hore u taqaanid oo rabtid inaad aqoontaada kor u qaadid waxa muhiim ah marka waxa baranaysid inaadan isticmaalin text editor ku horordayo IntelliSense leh marka waxaan sameynaynaa waan iska soo xidhaynaa IntelliSense-ga waxaan tagaynaa debug kabacdi waxaan ku dhufanaynaa open preference files halkan waa default preferences oo ah mid aan waxba ka bedeli karin kana waa kaad bedeli kartid kaliya waxaan muhiim inoo maaha laakiin waxaan rabaa inaad iska soo xidhid show code hints oo ku tusaysa tusaalahaan marka aad qortid buu sheegaya textiga ma waxaad bedelaysaa farta xajmigeeda ma farta midabkeeda marka inuu ku xasuusiyo looma baahna markaad waxaan baranaysid marka waxaad iska xidhaysaa show code hints false kanoo kale waxaan iska xidhay close tags html marka inuu automatic soo xidho tagska markaan furo kanoo kale iska cadi laakiin waxaa kugu muhiimsan kan inaad intaa yar soo copy garaysid show code hints false aad tabteeda u qortid aadan waxyaabaha kale oo dhan badbedelin haddii aad doonaysid inaad sidii hore ku ahaadana okay weeyo aynu hadda file cusub soo samaysano folder cusub right click halkan saarnaa new folder oo aynu bixinaa CSS ama website-ka waxaanu bixinaa some coders blog ayo website-kaas aynu dhisi doonaa insha Allah kabacdina waxaan tagaynaa practice-ka file-ka folder-ka aynu soo furno waxaan leenahay open folder kabacdina wuxuu inoo yaalaa desktop some coders blog baa la dhahaa saas aynu soo furaynaa waxyaabaha kale muhiimka ah weeye halkan wuxuu ku leeyahay wax la dhaho split waxa dhici karta vertical halkan CSS ka qoranaysa halkan HTML wuxuu kale leeyahay horizontal split waxaan kaloo samaysan karnaa wax la dhaho live preview waan isticmaali doonaa tusaale ahaan haddaynu halkan file cusub kusoo darno aynu dhahno file new waxaanu bixinaynaa tusaale ahaan bogga hore .html CSS markaad doonaysid marka hore waa inaad HTML soo qortaa waxaanu soo qorinaa HTML-ka caadiga ah ee naqaanay doc type waa HTML waxaanu furaynaa head waxaanu sameynaa titleka waxaanu ku qoraynaa bogga hore titleka ayaanu xidhaynaa sidii HTML-ka caadiga ah haddii waxan ay kugu yihiin adduun cusub ama HTML-kan hore u arag fadlan ku noqo kooraska ku saabsan halkan waxaan ilaaway HTML fadlan waxaa ku noqotaa kooraska HTML-ka baari ayaynu furaynaa oo ah qaybta bogga wax kasoo baxayeen baari ayaynu xidhaynaa ugu dambeynna waxaanu xidhaynaa HTML intaas waa building blockska HTML markaynu u baahnay inaynu CSS kusoo darsano waxyaaba fara badan oo halkan lagu soo daraa jira oo meta tags laakiin hadda muhiim inoo maaha maadaama aynu bilownahay ma rabno inaan koor fara badan qorno marka waxaan ujeedkeenu yahay inaynu ogaano live preview-ga iyo suu shaqeynayo kan haddaynu save dhahno ama control S aynu ku dhufanno meesha ay ku qoran tahay live preview wuxuu isku furayaa hadda browserka defaultiga ah ama asalka ah waxa ujeedaa hadda ma aragtid marka waxaan sameynaa calaamada Windows-ka iyo waxaan taabanayaa right-ka ama geeskaad ku bingaraynaysaa geeska midiga ayaad ku bingaraynaysaa wax kale maaha waa adoo geeskan saa u geeya si koodhkan labaduba u muuqdo kana waxaan ku bingaraynaya dhanka bidixda saasoo kale isugu kay eegyaalin xaggana mid baa yaala xaggana mid baa yaala soo haddii halkan kusoo daro wax fiiri hadda waxaan kusoo darayaa h1 ka markaa furtid si automatic ayaad u xidhaysaa halkaas ayaan koodhkan ku qorinaa haddii kale waad ilaaweysaa waxaan leenahay kusoo dhawow web design suma ujeedaa si isu bedeshay automatic ay isu bedeltay haddii halkan paragraph kusoo darsano paragraphka automatic ay isu bedelayaa marka qaabka noocaas oo kale ayaynu ugu shaqaysan doonaa waxba ha isku mashquulin haddii ay ku shaqeyn weydo preferenceska wixii su'aal waxaa soo dhigi kartaa forumka fadlan ha isku dayin inaad preferenceskan wax badan ka bedeshid haddii xataa kan kaa xumaado ka noqo waayo koodhkaaga oo dhan inuu shaqeeyo ayuu diidayaa programkan aad iyo aad ayay mahadsantihiin waa inoo casharkeena dambe wabilaahi towfiiq casharkeena waxaanu ku qaadanaa sidee loogu soo daraa naqshad boggaaga CSS-ka marka waxaa jirtaa 3 siyaabood oo loogu soo daro naqshad ama style tankooda waxaa la dhahaa inline style sheet talabaad waxaa la dhahaa internal ta saddexaadna waxaa la dhahaa external tusaalehaan haddii haysid paragraph elementigaas ku dhammaystiran marka isticmaalsi inline style sheetku waxa weeye in adigoo aan HTML-kaaga ka tegin aad paragraph-kaaga siisid style tusaale ahaan style-kaas oo kale wuxuu inoo geliyaa booskii HTML-ka la dhihi jiray attribute haddii tusaale hadduu halkaa linki ahaan lahaa waxaa ku dari lahayd href
saasoo kale waxaa ku darsaa attribute la dhaho style. attribute waxa weeye waa sifo aad siinaysid elementigan, kabacdina waxaa sheegaysaa waxa wax ka bedelaysid oo ah colorka iyo waxa aad ku bedelaysid oo ah midabka red. marka qaabka midabada u maareyso CSS-ku way inoo soo socotaa, waxba hadda isku mashquulinin. internal style sheet waxa weeye header-kaaga dhexdiisa ay waxaad gelinaysaa style tags, kabacdina halkaas ayaad dooranaysaa selector-kii oo ah paragraph-ka iyo decoration-ka iyo waxa aad siinaysaa ah color, midabkiisa waxaa ka dhigtaa red. ugu dambeyn waxaan isticmaali doonaa external style sheet marka ugu dambeysa tan oo ah tan mar kasta dadku isticmaalaan si ay u kala saaraan HTML-ka iyo CSS-ka. waxay isticmaalaan file gaar ah oo uu CSS ku leeyahay, kabacdina waxaa la isku xidhaa HTML-ka iyo CSS-ka. bal aynu ku horeyno inline style sheet iyo qaabka u shaqeyso. inkastoo tahay CSS-ku luqad ka duwan HTML-ka, haddana inta badan waxaa jirta qaab ay isu dhexgelin kartid adoo isticmaalaya inline style sheet oo adigoo ku daray elementigaaga attribute la style. tusaalahaan HTML-kan ayaynu haysanaa, markaynu body marayno oo ah meeshii wax kasoo baxayeen bogga, waxaan ku daraynaa attribute la style oo sheegaysa inaad ku daraysid CSS. kabacdina waxaan leenahay background-ka midabka dambe ama harka dambe waxaad ka dhigtaa midabka la blue. wax allaale wixii ku dhex jira bogga cad waxay noqonayaan midabkoodu micnaha background-ka ama harka ka dambeeya blue. tusaalahaan paragraph-kan ayaa waxaa ku daraysaa attribute la style, kabacdina colorka waxaad tiraahdaa waxaad iga dhigtaa casaan. wax walba wuxuu ka dhigayaa casaan oo colorka paragraph-ka ah. sidaas oo kale ayuu u shaqeynayaa. bal aynu eegno. ugu horeyn waxaynu haysanaa hal header, waxaynu kula kusoo darsan karnaa hal paragraph. waxaynu leenahay paragraph-ka ayaynu xidhaynaa. sidee baynu haddaba ugu soo dari karnaa CSS? waxaanu isticmaalinaa space ayaynu leenahay body markaynu joogno, waxaan leenahay style. maadaama body yahay containerkan ama ubuucdan dhan ee bogoo dhan hoos tagto, wax alaale wixii kasoo baxaya page-ka waxay hoos tagaan body. halkan waxaan leenahay waxaad bedeshaa background. qaabka ay u qoran tahay ayay u qoraysaa background-ka. markaad tiraahdid waxaad sheegaysaa midabka aad doonaysaa ka dhigtid. tusaalahaan waxaan leenahay waxaa ka dhigtaa black. waa ujeedaa inuu black ka dhigay, ama waxaan isticmaali doonaa blue. waa ujeedaa inuu ka dhigay background-ki. halkan haddii khaladid oo aarta ka tagtid oo ujeedaa waxba isbedeli maayo. marka mar walba waxaa isku daydaa inaad spelling-kaaga saxdid ama qaabka wax u qoraysid. midda labaad, halkan oo kale midabada ma dooran kartid cadaan, midabadii caadiga af Soomaaliga naqaanay. just midabadan Englishka ayaa dooranaysaa. brown oo kale waa dooran kartaa, saas oo kale ayaad midabada u dooranaysaa. waxaynu bedelnay koodhkeena ugu horeeyay ee body wax ubuucdii, bal aan isku dayno kuwan inaynu bedelno. waxaynu ku soo daraynaa style. sidoo kale kan background-kiisa waynu bedeli karnaa, laakiin qaab kale oo wax u bedeli karnaa inaynu tijaabinayna. style markaa qortid waxaa equal ayaad qoraysaa, kabacdi quotation ayaa furaysaa. wax allaale wixii quotationka hoostaga waa waxyaabaha aad wax ka bedelaysid, hana noqdaan kuwo jira. styles fara badan ayaa jira, waynu usoo soconnaa mid iyo mid ayaynu qaadan doonaa. tusaale waxaan leenahay color wuxuu background colorka ka duwan yahay. colorku waa midabka caadiga elementigu qaadanaya, laakiin maaha harka ka dambeeya. hadda color laba dhibcood, kabacdi waxaan leenahay tusaale ahaan white, midabkaas taqaanay. waa ujeedaa inuu header-keeni uu noqday midab cad. sidoo kale kan color kusoo dari karnaa style kale, maadaama styles fara badan ay jiraan. horta waynu yaranaa, waxaan leenahay kan waxaad ka dhigtaa yellow. ujeedaa kan paragraph-keeni inuu noqday yellow noqday. marka qaabkaas waa qaabka koowaad ee style-ka element u bedeli kartid. waxaana lahaa inline style sheet. adaan isdhibin oo HTML-kaaga ka bixin ayaad hal elementi oo gaara ayaad ku daraysaa hal style. marka qaabkaasi waa qaabka ugu horeeya ee CSS aa ugu dari kartid boggaaga. waxaan kugu hambaliyay inaad qortay CSS-kaaga ugu horeeyay. qaybtii hore ee casharka waxaynu kusoo baranay inline style sheet iyo sida aad HTML-kaaga u dhexgelin kartid CSS. qaybtan waxaan ku eegi doonaa internal style sheet. maadaama inline style sheet-kii uu inoo fududeeyay inaynu hal elementi wax ka bedelno, way adag tahay in aynu bedelno hal elementi wax ka badan oo isku mid ah. tusaale haddii meesha laba paragraph ku jiraan oo aan rabo inaan labadaba isku color ka dhigo, way adag tahay inaan inline intaan isticmaalo mid walba gaarkiisa u bedelo. qaabkan soo socda waxaynu ku isticmaali doonaa internal. tusaalahaan haddii aad haysatid paragraph, halkan laba paragraph ku yaala. marka maadaama kana aad style si lahayd kana style si lahayd, labadooduba hal mar ayaad dooranaysaa. elementiga magaciisa koowaad ayaad dooranaysaa, kabacdi waxa allaale waxa ku bedelaysid ayaad halka ka dooranaysaa. marka qaabka hore inline-ka loo qorayna wuu ka duwanaanayaa marka laga hadlayo style.
bal aynu u guda galno waxa qaabka saxda ah ay u kala duwan yihiin internal style sheet iyo inline style sheet. Okay, qaybteeni practicalka waa tan. Halkan ayuu casharkeenu ugu dambeeyay noo marayay. Waxaynu haysanay hal paragraph oo ku saabsan soo dhaweyn iyo hal header. Bal aynu ku soo darsano paragraph kale baro CSS ayaan leenahay. Just waa qoraal. haddaynu rabno inaynu kan bedelno waxaan isticmaalnay marka hore style kadibna equal ayaan leenahay, waxaan leenahay color. So paragraph-kana gaar buu yahay oo wax alaala wixii paragraph ka bilaabma ilaa paragraph ka xilmeeyo colorkooda yellow ayaynu ka dhignay. Kan waa paragraph kale sida HTML-ka waxaan leeyahay sida Word-kaagu u leeyahay paragraphyo fara badan iyo header oo ciwaan ah ayaynu sida laba paragraph waxaan isticmaalnaa hal header. Okay, baalka soo qaad kan iyo kan labadooduba waa isku midab, laakiin mar walba haddaynu 20 paragraph haysano sidaas aynu mid walba style u siinayna. Marka miisan ka fiicnayn qaab kale inuu isticmaalo. Marka waxaan isticmaali doonaa internal style sheet. So waxaan ku qornaa style waynu xidhaynaa, halkan waxaan siinaa style. Marka laga hadlayo CSS space-ku wax dhiba kuma yeelayo. Okay, halka waxaan ku furnay tag la dhaho style, waxaan ku xidhnay style. halkaas ayaynu ku qoranaa waxyaabaha aynu hadda doonayno dhan. Kan waxaynu ka siibaynaa intan waan ka taatirinaa, intan ka taatirinaa colorka yellow-ga. Okay, so waxaan leenahay B baynu dooranaa, kabacdina waxaad gelinaysaa curly brace. Okay, wax allaale wixii labadaa u dhexeeya bil waxay noqonayaan wax allaale waxaad ka bedelaysid paragraph-kaaga. Okay, waxaan u kala baxayaa wax la dhaho selector iyo decoration. Selector waa elementiga aad dooratay ee HTML tag ah. Decoration waa waxaad wax ka bedelaysid oo waxay isla socdaan pairs, macnaha waxaad bedelaysid iyo waxaad ka dhigaysid. Tusaale waxaan bedelnaa color, laba dhibcood ayaan leenahay, midabka aynu ku bedelnaa doonaa waxaan leenahay yellow. Soo ujeeda labadaadii paragraph hal mar ayay isbedeleen. Markaan yellow qoray hal mar ayay isbedelayaan labadaadii paragraph, sababtoo ah paragraph ayaan doortay. Paragraph-ka ma sheegin kuu yahay, kana paragraph alla kana paragraph. So tusaale laba qof oo isku magacaada u yeedhid waa tala hebelow labadaba ku soo jeesanaya, sidaa darteed labadanba waxaan ku sameeyay colorkooda hal mar aan bedel. Okay, bal kaba soo qaad haddaan header-kan wax ka bedelayo. waa taa tiray, waxaan dooranayaa header maadaama header-ku h kaliya yahay h weyn yahay h1 ayaan dooranayaa. kabacdi halkaas waxaan ku furayaa bilihii, kabacdi waxaan leeyahay isaga laftii colorkiisa wuxuu ahaa white by default asal ahaan waa madow midabka elementi walba oo HTML ka qoraysid. Okay, baadhina sidaas si lamid ayaa u dooran karaa oo aad stylekiisa background colorkiisa u bedeli kartaa. Marka baadhi idinkan idinka tegaya inaad tusaale u qaadataan oo isku daydaan. Billahi tawfiiq. Qaybteeni saddexaad ee CSS-ka ayaynu eegi doonaa. Waxaana lahaa external style sheet. Dadka inta badan sameeya bogagga website-dada ma jecla inay isdhexgeliyaan HTML-ka iyo CSS-ka. sidaa darteed waxay isticmaalaan file u gaara CSS-ka kaasoo extension-kiisu yahay .css sida HTML-ka ugu dambaysiinaysa .html. kabacdina waxay isku xidhaan HTML-ka CSS-ka, kabacdina CSS-ka ayay mar walba bedelaan. waana bogagga intooda badan qaabka aad ku arkaysid inay file external isticmaalayaan. Okay, tusaale haddii koodhkaaga HTML-ku sida yahay, kan waxaa ujeedaa link inay sameeyeen, waxay ku xidheen href oo ah hyperreference fileka magaciisa. filekaas oo ah fileka any name aad u bixin kartid style ama naqshad .css. kabacdina type-ka ayaa dooranaysaa oo ah waxani maxay yihiin aad ku xidhaysid HTML-ka. soo waxaad dooranaysaa waa text.css. browserada qaarkood intan waa ka tegi kartaa. ugu dambeynta ugu muhiimsan waxaa weeye inaad sheegto relationship-ka ka dhexaynaya filekan aad ku xidhaysid iyo HTML-ka. soo relationship-kaasna waxaa weeye style sheet oo ah inaad ku xidhaysid naqshad ama CSS. intaas ayaad header-ka dhex gelinaysaa, fileka magaciisana sheegi doontaa. So okay, halkan waxaan ka soo qaadanaa fileka inaan sameynay, waxaan sameynaa file la dhaho naqshad.css. kabacdina markaas ayaynu waxaan isticmaalnaa inaynu bedelno selector-kii oo ah paragraph-kii iyo decoration-kii oo ah inaynu color-kiisa bedelno, farta cabirkeedana bedelno. soo bal aynu tijaabino qaabka u shaqaynayaan. casharkeenu ugu dambeeyay waxay noo joogtay halkan inaga oo sameynay dhowr style. waxaan idinka idiin diray inaad samaysaan baadhi. waxaan rajeynayaa inaad samayseen insha Allah casharkeen inta ku dhex jirno bal baadhigana waan sameynaa iyo waxay ku kala duwan yihiin.
intaynu u gudagelin qaybta external style sheetka waxaa muhiim ah inaad ogaatid headers waxa kala baxaan lix. haddaan halkan hadda h2 doorto oo aan dhaho waa headerka labaad, saa u jeedaan h2gan midabkiisu waa madow. haddana h1 ayaan doortay kalarkiisa cadaan ah. maxay ku kala duwan yihiin? h way wadaagaan laakiin kana waa h1 h2 iyo saa h10 markuu barateen lix nooc oo header ayaa jira h1 ilaa h6 u dhaxeeyo. laakiin paragraphku isagu uma kala baxo b1 iyo b2 sida isla socono. marka qaabkaas ayay ku kala duwanaanayaan inaad h2 iyo h3 iyo ay ka duwanaadaan h1ka. okay, bal aynu external file-kana samayno. waxaanu tagaynaa file new ayaan leenahay. file-ka waxaanu u bixinaynaa save ayaan control s waxaan leenahay ama file save as waxaanu u bixinaynaa naqshad. magaca dunta baa bixin karta any name .css dadka qaarkood waxay dhahaan nashqad, no problem. file-keena markaan samaysanay halkan waxaa u jeedaa in text editor-keenu leeyahay laba nooc oo aynu u kala jebin karno qoraalkeena, vertical split iyo horizontal. horizontalka ayaan dooranaa. kan hore waxaanu ka furaynaa html-ka, kan halkan waxaanu ka furaynaa css-ka. soo bal maxaynu sameynaynaa? halkan file-keeni css-ka inooga furan, halkan html-keeni. okay, waxaanu sameynaynaa wax allaala wixii style ku dhex jiro dhan ayaynu cut dhahaynaa, right click waxaanu leenahay cut. waxaanu keenaynaa file-keena la dhaho css-ka. haddii inay sidan iskugu ka agyaalin kuwa adag tahay kaliya aan wax kale ma sameyne, haddaan hadda isticmaalo no split file-kii css-ka ahaa baan double click siiyey, koodhkii ayaan soo kobigareeyay, halkan ayaan dhigay. laakiin in tusaale ahaan waxaa fiican inay isku ka agyaaliin. so waxaan leenahay halkan ku dhufan waxaan leenahay vertical horizontal split ii kala jebi. kabacdina kanna waxaan leenahay halkan html-ka ka furmo double click si xaggan taga. marka selecting ka saartid focus ka saartid oo kugu dhaho focus ka saaran css-ka double click si. okay, soo u jeedaa in halkan waxba isbedelin sababtoo ah style-keeniina meesha waan ka tuurnay. waxaanu keenay file gaar oo la dhaho naqshad.css. magaca dunta la bixi kartaa. sidaa darteed waa inaynu file-ka ku xidhnaa file-ka kale. link ayaan isticmaalaynaa. waxaan leenahay href oo ah hyperreference file-ka magaciisa. file-ka waxaa la naqshad.css. hadda inta kaliya u daayo oo linkiga xidho weli waxba isma bedelin sababtoo ah waxa ugu muhiimsan waxaa ka maqan oo ah relationship-ka iyo type-ka. type-ka xataa dunta ka tagi kartaa, bal aan type-kana ku darno. type waxa weeye equal text/css. weli waxba isma bedelin. waxaa ka maqan kii ugu muhiimsanaa oo ah relationship-ka. waxaa leenahay space rel oo ah relationship-ka ka dhexeeya oo ah style sheet. tiida markaan qoro sida isu bedelaan fiiri. wow, soo hadda file-keena wuxuu ku xidhan yahay file external ah oo css ayuu ku xidhan yahay html-keenan. browserska qaar text type-kan iyaga ayaa automatic ugu darsado, soo mararka qaarkood type-kan waa la iskaga tagaaba, laakiin mar walba waxaa ku fiican inaad type-ka ku darsatid ayaa ku fiican. okay, soo hadda file-keenii html-ka ahaa wuxuu ku xidhan yahay file external ah oo css ah, laakiin magaca mar walba waa iska hubinaysaa. haddii magacu hadda halkan naqshad yahay waad ka dhigtay nashqad, wax isbedela ma leh sababtoo file-kan waxaa la dhahaa haddii tagno file open halka laba file ayaa ku yaala. kan waa boga hore .html oo aad u jeedaan inuu yahay chrome html. kana waa naqshad oo ah css file sababtoo markii extension-ka raacaysa wuxuu ahaa .css. okay, soo mar walba waxaad iska hubinaysaa inaad magaca uu yahay magac saxa. sidaa darteed halkan waxaynu hadda wax ka bedeli karnaa baadhigii oo baadhiga style-ka waxaanu ka turi karnaa ah inuu colorkiisu ahaado brown ama background colorkaas. oo halkan ayaynu imaanaynaa. waxaan leenahay waxaad dooranaysaa sorry kuwan markaan soo kobigaranayay iga kala fogaadeen. waxaan taabtay shift iyo tab. soo waxaan leenahay body door. wax allaale wixii aynu halkaa gelino calibreska ayay waxaa iska bedelayaa ubuucda boga. soo waxaan leenahay background. hadda muujida background markaan qorayo ima horordayo ima dhammaystirayo, laakiin markaan haddaan soo furan lahaa meeshii intelligensiga ahaa wii horordi lahaa. soo waxaan leenahay brown. soo any midab ayaan dooran karnaa teal. muhiim ah inaad midabadan iyo marka hore aad isku mashquulsid. midabo oo luuqadan lagu dhisay weeye. marka qaabkaasna waa qaab aad html-ka iyo css-ka iskugu xidhi kartid. casharkan waxaan ku qaadanaa css comments. comments-ku waa qayb koodhka ka mid ah oo aan kasoo muuqanahay browser-ka. waxaana loo isticmaalaa siyaabo kala duwan. siyaabahaas oo kale ah sida marka aad koodhkaaga aad doonaysid inaad qayb ka mid a qarisid laakiin aadan rabin inaad tirtid, iyo marka aad koodhkaaga ku daraysid faallo.
koodh baa qortay, waxaa laga yaabaa inaad sanad ka bacdi ama 6 bilood ka bacdi soo noqonaysid. haddii aad markaa faalo ku darsatay, faaladan baa akhrisanaysaa iyo waxa aad ula jeeday. haddii qof kaa dambeynaya wax ka bedelayana waxaa uu akhrisanayaa faallada. so css markaa qaab waxay leedahay loogu soo daro comments faylkani naqshad.css haddaynu tagno markaynu ku darayno waa single line comment hal line waxaan isticmaalnaa / iyo asterisk kabacdina waxaan ku xirnaa asterisk iyo /. haddii aad doonayso inaad laymo fara badan aad samaysid commentiyana waxa allaale wixii u dhexeeya / iyo asterisk waxay noqonayaan wax loogu yeedho comment. so intan oo kale ayaynu waxaanu ka dhiganaynaa comment kabacdina browserka qaabka uu la ficil galo ayaynu tijaabin doonaa. okay, marka commentiska laga hadlayo tusaalahaan halkan oo kale waxaa samaysayba background color. so hadda waxaa jira waxa la dhaho hexadecimal background colors, bal waxaan tijaabinaynaa / asterisk haddaynu dhahnay wax allaale qoraalkeennii oo dhan wuxuu noqday comment. innagaan xidhin ayuu wax walba comment noqday. so waa inaan ku xidhaa asterisk oo ah shift 8 iyo /. wax allaale wixii labada u dhexeeya waa comment. tusaalahaan waxaan doonaynaa wax la dhaho color space iyo waxaas waa caadi. waxaan leenahay tusaalahaan haddii aad qortid midabka la dhaho ff0 waa inuu soo socno hexadecimal colorska waa yellow baan ula jeedaa. okay, so halkan imaanaysaa waxaad qoraysaa ff0 oo ujeedaa inuu pageka yellow noqday, laakiin qofka kaaga dambeynaya koodhkan ama hadda koodhkan usoo noqotay dhowr bilood ka bacdi haddiisan commentiga lahayn garamaysa ff0gan waxa ay really tahay ma garanaysid. saasoo kale ayaad midabkaaga waxaa leeyahay koodhkaaga ugu darsan kartaa faalo. okay, aynu ka noqono commentiska waxaa kaloo qaab kale ugu darsan karta. waxaa jira waxaad dhihi kartaa tusaalahaan qaybtan waa qaybtii headerka ahayd ayaad leedahay ayaa wax ka bedelayaa. intana soo koobi garanaysaa halkan waxaad leedahay wax ka bedelayaa paragraphska. tusaalahaan iska just tusaale qaybtii footerkii oo kale dhahaysa waxbaan ka bedelayaa. okay, so wax allaale wixii footerka ka hooseeya commentiga ku darsa. layman fara badan waa ka dhigi kartaa. waxaa isticmaali kartaa calaamadaha sida inta badan aragtid. waxaa isticmaali kartaa numbers wax allaale wixii ku jira labada / iyo asterisk waxa u dhexeeya browserka uu qaadanaya inay yihiin comment. okay, qaab kale waxaaba rabtaaba inaad qayb koodhkaaga ka mid ah qarisid laakiin aadan rabin inaad taatirtid. koodhkan haddaan rabo inaan taatirin laakiin inaan qariyo waxaan ku darayaa comment. so waxaan taabanayaa shift iyo /. qaab fudud haddaad doonaysa ugu dartid waxaa isticmaali kartaa shift iyo /. marka ka qaadisid uncommented item waxaa isticmaalaa shift /. so haddaan isticmaalo shift iyo /. intan paragraphkan iyo wax allaale wixii ku dhex jiray oo dhan wuxuu ka dhigay comment. so waxaa ujeedaa paragraphkan oo dhan inaysan isbedelin labadii paragraph. haddaan rabo inaad soo ceshano sidiisi. waxaa jirta siyaabo fara badan oo css u select garayso ama u doorato elementiga ay wax ka bedelayso naqshadiisa. waxaana ugu horeeya in elementiga doorato tag namekiisa ama magaca sumadda. tag name marka laga hadlayo waxa weeye elementiga actual ama magaciisa dhabta ah weeye. tusaalahaan halka haddaad ku haystid header iyo paragraph si aynu hore usoo aragnay header ayaad toos u dooranaysaa. hadduu header 1 yahay header 1 ayaad qoraysaa kabacdina waxaad gelinaysaa decoration wax allaale waxaad wax ka bedelaysid. haddii wuxuu yahay paragraphka ayaad dooranaysaa kabacdina waxaad ka bedelaysaa. bal aynu eegno tusaalayaal intaa ka duwan si aynu u fahanno qaabka tag nameku u shaqaynayso. halkan waxaanu ku haysanaa html-keenii iyo css-keenii. hore waxaa usoo aragnay inaynu body dooranay oo bodyga wax ka bedelnay, paragraphka wax ka bedelnay, halkan headerka wax ka bedelnay. bal aynu qaab kale isticmaalno. waxaanu sameynaa wax la dhaho division ama divider oo inta badan aad bogagga ku aragtaan. inkastoo hadda html5 ku aysan isticmaalin dividerka oo ay isticmaasho elements leh semantic meaning sida header oo kale. divisionkii markaan furay waxaan ku xidhayaa halkaas ayaa divisionka ku xidhayaa. divisionkii waa divider ama kala qaybiye. halkan waxaan u sameynaa division kale. halkan waxaan ku xidhnaa divisionkii. mar walba waxaa isbartaa dhaqanka ah markaad element furtid bartiisa ku xidh. hadduu css yahay iyo haddii html wax ku qoraysidna elements ka xidh. haddii css tahayna waxaa mar walba bedelaysaa decorationka mar walba xidhaysaa calibraceska. okay, halkan waxaanu ku furnay division ama divider waynu xidhnay. halkan markaa waa laba division bay kala yihiin. okay, bal aynu doorano magaca elementiga. waxaan leenahay divisionka kabacdina waxaanu ku xidhnaa set of calibraces. wax allaale waxaan bedelay halkaas. haddaan dhaho background color oo aan isla naqaanay haddaan dhaho waxaa ka dhigtaa brown. so waxaa ujeedaa intan maadaama ay divider ku dhex jirtay brown bay noqotay. intan maadaama ay divider ku dhex jirtayna brown bay noqotay. halkan waxaa u dhexeeya
space meel maran baa u dhaxaysa. Okay, so haddii aynu rabno inaynu laba divider kala bedelno, kan waxaanu bixin karnaa header way dhici kartaa oo halkan aan ku xidhno headerku wax divisionka uu kaga duwan yahay ma jirto, laakiin wuxuu kaga duwan yahay kaliya semantic meaning oo qofku markuu soo galo website-ka wuxuu fahmayaa inuu kan header yahay kana uu yahay footer u isticmaali karaa ama main saas oo kale. So haddaynu header dhahno, headerna saas oo kale aynu bedeli karnaa. Waxaan header kabacdina haddaynu waxaan ku dari karnaa wax la dhaho background weyn la daashatay, waxaan ku darnaa border 2 pixel solid red. soo ujeedaa midab red ah ayaa isku wareeji. muhiim ah inaad hadda sida waxaan u qormayaan ogaatid. casharadana dambe aynu murmur ugu baran doonaa, laakiin marka hore conceptiga guud fahan. So border ayaa isku wareeji. laakiin hadday isku magac ahaan lahaayeen kana divider ahaan lahaa waxay qaadanayaa si hal CSS ayay qaadanayaa. sidaa darteed haddii aad qaabkan hore isticmaalaysid ee dividerka sidee u kala saari kartaa elementskan, waxaanu intaa ku baran doonaa casharkana soo socda. wabilaahi tawfiiq. CSS kaliya kuma koobna inay doorato magaca elementiga, waxay kaloo isticmaashaa wax la dhaho class name. marka aad class name kusoo daraysid waa inaad kusoo dartaa sifo ama attribute la dhaho class, kabacdina aad doorataa magaca classka. tusaale ahaan waxaad haystaa laba header, labaduba waxay haystaan sifo oo ah class la dhaho farcad. kabacdina halkan waxaad imaanaysaa classka magaciisa ayaa qoraysaa oo ay ka horeynaysaa dot. kabacdina waxaad sheegaysaa wax alaala wixii aad siinaysid qiimo ah. bal aynu tusaalaheedu eegno qaabka class name-ku u shaqaynayo. Okay, halkan waxaad ku haystaa paragraph, xaggan waxaad ku haystaa paragraph. waxaad rabtaa inaad headerkan iyo paragraphkan ku siisid isku naqshad. soo kan waxaad siinaysaa class la dhaho farcad tusaale ahaan, kan waxaad siinaysaa class la dhaho farcad. waxaad doontaa ka dhigin kartaa wax alaala wixii qoraal halka ku jira, laakiin magaca classka oo kale inaad iska tagtid oo kale aad baas ka ilaalinaysaa. soo hadda class name ayaan sheegnay. soo haddaynu hadda dhahno halkan farcad, sorry inay baadhiga ka sareysa maaha, waa inaynu meel dhexe keenaa oo aynu ku garan karno. waxaan leenahay halkaas aynu keenaa, waxaan leenahay farcad qaabka aynu u qornay oo kala. kabacdina aynu ku xidhnaa bilaheeni. haddaynu hadda doorno color aan dhahno white ha noqdo colorku, waxba iskama bedeleen. headerkeena ay ku qoran tahay kusoo dhawow already. headerkeenan wuxuu ahaa farcad, aynu ka taatirno headerkeenan. okay, headerkeeni saasuu madow yahay maadaama uu class haysto headerkan, paragraphkana class haystaan. classkiina aan sheegay magaciisi waxba isma bedeleen. why? classka mar walba waxaa ka horeysaa dot. soo darteed waxaa isbedelay paragraphkii iyo headerkiiba. sidaa darteed mar allaale markaad class dooratid ee magac siisid waa inaad ka horeysaa magacii classka iyo dot. markaad joogtid dhanka CSS-ka anything ayaad ku samayn kartaa. waxaad samayn kartaa fonti, family ayaad bedeli kartaa, farta nooceeda waxaad ka dhigi kartaa any farta aad doonaysid, ama Arial faraha aad taqaanid noocyada dunta ka dhigi kartaa, Times New Roman. waynu soconaa faraha iyo qaabka u shaqeeyaan. soo classesku waxay ku fiican yihiin waa reusable oo meelo kala duwan ayaad u adeegsan kartaa. tusaale ahaan haddaad doonto paragraphkana kala yaan waxaan leeyahay class waxaa siisaa la dhaho farcad, far hyphen cad. soo isna fartaysa caddaamay noqota. that means halkan inaan uga sheegay maaha farcad, laakiin waxani waa iska magacan waxaad gelisid unbaa waxaa kaaga soo baxayo xaggan. haddaan hadda fartaan ka dhigo yellow ama aan ka dhigo farta la dhaho blue, farti blue bay noqonaysaa, laakiin magacu wuxuu ahaa farcad. soo just magacan waa magacaad ka dhigatid un inuu wixii aad qoraysid matelayo. maadaama farcad doortay farta inaan ka dhiga caddaan, haddii kale halka waxaa imaanayaa inaad waxyaaba fara badan xataa koodhkaaga dib u edit karin karweyd. sidaa darteed waxaa isticmaali kartaa waxa la dhaho multiple classes oo casharkana soo socda. laakiin muhiimadda aynu classka haddeer ka lahaynahay tusaaleheen waxa weeye sidee baynu labadan divider u kala saaranaa. soo kan waxaanu siinaa class la dhaho header, kan waxaanu siinaa class la dhaho. soo insa baadhiga hoostiisa ayaan waxaa leeyahay header ii door. maadaama wuxuu class yahay maxaan samaynayaa, waxaan ka horeysanayaa dot mar walba la soco. soo headerka waxaan rabaa inaan background colorka brown. soo intaan soo copy garanayaa maadaama division hadda laga soo tegay, divisionkan waa iska comment garaynayaa. okay, maanta mid walba class gaar oo haysta. soo kana brown baan ka dhigayaa dot. waxaa leeyahay haddana
class ka kala magaciisa muxuu ahaa content uu ahaa soo waxa la content-gana background color ka waxa ka dhigaysaa midabka la dhaho gray baynu dhahnaa tusaale gray soo waxa u jeedaa kana wuxuu noqday casaan kana wuxuu noqday gray haddaan doonayo inaan isu daba mariyo kan waxaan xataa siin karaa class la dhaho content soo wuxuu noqonayaa gray ama kan ayaa waxaan siin karaa class la dhaho header soo waxaad u jeedaa faa'iidada ay leedahay class oo ay kaga duwan tahay inaad elementiga toos select kari sababtoo ah elementiga haddaad division doorto divisionka wax walba oo division qoro wuxuu yeelanayaa wax alaale wixii division aan select gareeyay marka sidan oo kale ma fiicna inaad div oo dhan select gareysid laakiin waxa fiican elementiga inaad gaar u target gareysid maadaama div aad mar walba isticmaali doontid intaas waxaanu ku gabagabeynaa qaybteeni ahayd classeska waxaanu eegi doonaa qayb kale oo classeska oo ah multiple classes wabillahi tawfiiq hadda waxaanu isticmaalnaa inaynu ku darno element walba hal class bal ka waran haddii elementigaaga u baahan yahay wax ka badan hal nashqad si wanaag HTML-ku waxay ku suurtagelinaysaa inaad isticmaashid wax ka badan hal class faa'iidadeedana waxaanu ku eegi doonaa tusaalaheena tusaalahan waxaad haystaa halkan header iyo paragraph waxaana bedeshay farcad oo aynu tusaalahan ku soo aragnay farteena inaynu ka dhigno cadaan ama green in midab waxaan halka green ka uga dhigay si aad u fahamtid waxaan farta cad inaysan waxba bedelayn marka qaarkood qofku markuu wax baranayo wuxuu isdhahayaa fartan cad meesha lagu qoray ayaa wax bedelaysa sidaa darteed farta green ayaan ka dhigay waxaan sameeyay class kale oo la dhaho ball oo farta ka dhigay xajmigeeda mid burburan soo halkan waxaa ujeedaan inaan siiyey farcad kabacdi space baan idhi kabacdi ball baan idhi soo halkan waxaa ujeedaa inuu qaadanayo multiple classes laakiin ay u dhaxaynayso wax la dhaho space okay bal aynu tusaalahooda eegno halkan waxaan ku haysanaa farcad soo haddaynu sameyno class la dhaho ball oo aynu kan ka dambaysiino faylkaaga hadduu aada usii koro waxaa fiican inaad gaar ka dhigtid laakiin inaga waxaan rabaa inaan waxa in isbedelka toos ula socono waxaan sameynaa class la dhaho ball oo ula jeedno far burburan in magaca aynu ka dhigin karaan doono soo waxaanu sheegaynaa font weight oo ah CSS farta xajmigeeda waxaa ka dhigtaa ball ayaanu leenahay soo waxaynu kusoo noqonaynaa paragraphkeeni halkan waxaanu siinaa magacii classka laakiin markan dad ka horeysa bayna magaca caadi noqon waxaan leenahay ball marka paragraphka ay ku qoran tahay marka la soo dhawo waxa iska bedelaya ball markan siino fartiisa waxa u jeedaa inay noqotay mid waaweyn haddaynu sidoo kale maadaama headerku awlara ball iska ah aynu siino ball waxaa laga yaabaa wax different weyn arag sababtoo headerku sida HTML ku baratay marka horeba uu yahay ball laakiin haddaynu kan kala bedelno lana ball ka dhig oo jeedaa si isu bedelayo waxyaabo waxa jirta aan classka lagu apply gareyn karna haddaynu headerkan tagno oo divisionkan dhahna ball ka dhig wax isbedel arkimayso sababtoo ah waa headerku waa frameki wax ku jireen ballkuna waxay wax ka bedeshaa waxweeye waa far maadaama paragraphina wax ka bedeshay headerkana wax uga bedeli weydana waxweeye headerku markii hore wuxuu iska ahaa ball bal aynu eegno qaab kale oo aad multiple classes u isticmaali kartid oo ku saabsan headerka iyo mainkeena waxaan u baahanahay tusaale ahaan class la dhaho just borderba dot border class la dhaho sameynaa soo waxaan leenahay waxaan rabnaa class walba inuu yeesho border ba dhahaysaa CSS ah waxaa dhahaysaa tusaale 5 pixel solid green soo haddaynu headerkan aynu ku darno space aynu dhahno border classka la dhaho waxaa ujeedaa midab green ah inuu isku wareejiyey oo xajmi badan qasab kaliya maaha inuu green noqdo waxaan ka dhigi karnaa si aad u aragtid yellow soo waxaa ujeedaa midabkaas suu isu bedelay sidoo kale kana waynu ku dari karnaa border soo waxaa ujeedaa midabka isku bedelay yellowga soo ujeedada muhiimadda casharka waxa weeye inaad isticmaali kartid wax ka badan hal class haddii class kale aad haysid xataa halkan space siinaysaa dhihi kartaa classka kale waxaan u baahanahay la dhaho sidaa waxaa iska ilaalinaysaa kaliya inaad classyada is override gareeyaan oo haddaad halkan dooratay class la dhaho header contentina labaduba background kala bedelayeen way is override gareynayaan oo isku dul darsamayaan marka taasoo kale waa iska ilaalinaysaa overridingkan waxaan ku eegaynaa casharkeena soo socda oo ku saabsan specificity ama sida ay u kala awood badan yihiin HTML elements aad iyo aad ayay mahadsantihiin wabillahi tawfiiq casharkeena hore waxaan ku soo qaadanay classeska iyo qaabka u shaqeeyaan marka dooranaysid elementska casharkeena waxaan ku baran doonaa ID tusaale haddii aad doonaysid inaad elementigaaga u nashqadaysid si gaar ah adiga inta tixgelinahayn classka uu haysto ama element name-ka waxaan isticmaali doonaa ID sida ku xusan tahay magacan waa unique identifier wax gaar ama elementigani leeyahay sidaa darteed waxaan sameynaynaa tusaale ahaan class la dhaho paragraph la dhaho tusaale ahaan likes oo aynu ugu talagalnay inaynu siino attribute la dhaho ID
meeshii class ahayd unbaa waxaa ka dhigaysaa space id aad leedahay kabacdina magaca id-ga ayaa sheegaysaa. soo hadhow markaad dooraysid ama dooranaysid id-ga oo filekan css-ka aad ka dooranaysid meeshii classka aad ka horeysiin jirtay dot id-ga waxaa ka horeysanaysaa calaamad hash signka ayaad ka horeysanaysaa, markaas ayaa sheegaysaa waxa aad wax ka bedelaysid. soo waxaynu usoo soconaa qaybta specificity-ga ama sida u kala dooradsiiyaan css-ku html-ka, laakiin hadda waxaanu eegaynaa bal qaabka u shaqeyso id iyo qaabka u masaxdo waxyaabaha kale oo dhan. okay, halkan hadda waxaa ku haystaa class la dhaho main iyo header. bal aynu kusoo darno footer baynu kusoo daraynaa ama div class footer baynu bixinaynaa, kabacdina waxaanu xidhaynaa divisionka aynu xidhaynaa. haddii aad html semantic elements ka adeegsatid sida footer oo kale waa caadi. soo waxaanu leenahay paragraph aynu kusoo daraynaa la dhaho boga waxaa halkan waxaa ujeeda paragraphka. soo footerkan oo kale markaynu select garanayno haddaynu isagana siino waxaa la dhaho background color aan dhahno footer, isagana aynu siino waxaynu background colorka u isticmaalinaa weye mar walba inaynu selectorskeena isku ekaadaan. soo halkan waxbaan qaladnay footer laba jeer aynu xidhnay, footerkina waxaanu siinay background colorka. soo bal waxaan rabnaa footerka inaynu siino waxa uu kala gaaraya kuwa kale oo dhan. soo halkan waxaynu sameynaynaa id ayaynu sameynaynaa footerka maadaama kala siino waxaanu siinaa id wax la dhaho aynu soo gaabinaa id-ga. soo halkan waxaanu ku daraynaa footer txt ayanu soo gaabinay text, kabacdina waxaanu gelinaa koodhkina halkaas. waxaan leenahay mar walba oo qoraalka footerka ku dhex jira ha noqdo text. qoraalka footerka mar walba ku dhex jira fartiisa waxaad geysaa dhanka midigta. inta badan far midigta la geynayo waa wax aan mar walba dhicin, inkastoo ay fiican tahay paragraphka inaynu siino id-ga, laakiin footerka aynu sala koygina. soo haddana hadda ujeedaan aynu waxba isma bedelin, footerka qoraalkiisii by default leftiga ayuu yaalaa. okay, soo sidaynu wax uga bedeli karnaa marka waxaynu wax uga bedeli karnaa halkan maadaama aynu id dooranay waxaanu saacinaa calaamadda pound sign-ka. soo hadda waa ujeedaa qoraalka inuu aaday dhanka midigta. soo haddaynu xaggan tagno footerka qoraalkiisa wuxuu jiraa dhanka midigta. okay, keliya uma isticmaali kartid footerka, laakiin waxaa u isticmaali kartaa oo kale ina paragraphka laftarkiisa siisid id-gaas. paragraphka laftarkiisu waa ujeedaa inuu isbedelay oo u aaday dhanka midigta. soo haddii paragraphkani markiisii hore uu ahaa dhanka inuu joogay bidixda, hadda midigtu aadaya. tusaalahaan hadda waxaanu kusoo darnaa paragraphka ayaynu toos u select garanaynaa. paragraphka waxaan leenahay text align center, qoraalka waxaad geysaa dhexda. soo waxba isma bedelin, sababta isu bedel waxa weeye id-ga waxa uu masaxayaa wax allaale wixii class ah iyo element name-ka ah tag selector-ka ah waxaa masaxaa id-ga ayaa masaxa. waxaynu aada ugu qaadaa dhigi doonaa casharkeena ku saabsan kala doorasiinta. soo id-gana qaabkaasoo kale isticmaal kartaa waa markaa rabtid inaad elementiga sheegtid waxa uu gaar leeyahay ama uu kaga duwanaado elementyada kale. already elementyada kale paragraphyada kale waxay tageen dhexda ayay tageen, laakiin kan uu ujeedaa inuu tegay dhanka midigta. intaasna waxaanu ku eegaynaa qaabka loo isticmaala id-ga marar badan ma isticmaali kartid oo ma soo celin kartid. id-ga waa unique, hal meel oo kaliya ayaad u isticmaali kartaa. maadaama ay css-ku isticmaasho selectors fara badan oo kala duwan, waxay leedahay qaab ay u kala hormariso ama ay u kala doorasiiso ka ugu awooda badan iyo ka ugu yar. qaabkaas oo la dhaho specificity waa qaabka ay elementsku u kala awood badan yihiin markaa css selectorska laga dooranayo. tusaale ahaan waxaa jira waxa la dhaho class name oo aynu hore usoo aragnay, tag name iyo id. mid walba midka kale way ka xoog weynta. tusaalehaan haddii paragraphkaasi uu haysto class la dhaho farcad oo fartiisana aynu ka dhignay green, haddaynu u nimaano id-ga uu haysto oo ka dambaysin oo grey farta ka dhigno midabkeeda waxaa fartaasi noqonaysa grey, sababtoo ah id-gu mar walba wuxuu ka awood badan yahay class name-ka mar walba wuxuu ka awood badnaanayaa tag name-ka. bal aynu tusaalaha ku qaadaa dhigno. okay, halkan waxaa ku haystaa paragraph colorkiisana aan ka dhigtay yellow, sidoo kale waxaanu ka haysanaa farcad oo class ah oo aynu ka dhignay colorkii white. okay, bal aynu hal paragraph tusaalaha ku qaadano. waxaanu ku qaadanaynaa
paragraphka la dhaho process baa aad ugu fiirsanaysaa si uu bedelo. halkan waa qoraalkiisa ka soo baxaya. So wuxuu haystaa class la dhaho farcad. waxaan taatirinaa farta cad ayaan waxaan ka dhiganaa comment shift forward slash. By default paragraphkaas ay ku qoran tahay process fartiisu waxay noqotay yellow iyo waliba paragraphyada kale sababtoo ah element selector by tag name ayaan doortay markii ugu horeysay waxaan ka dhigay fartooda yellow. So hadaan midab kale ka dhigo aan ka dhigo blue farta blue bay noqonaysaa. Okay, inta way isla soconaa. bal haddii meeshii adoo yellow u haysto elementigii aynu class siino classkaana aynu fartii bedelno mid colorka farta ka dhigay cadaan oo aynu uncommented dhahno fartii waxay noqotay cadaan. sababta u noqotay waxa weeye classka ayaa mar walba ka awood badan elementiga inaad dooratid. haddaad h1 dooratid waxaa ka awood badan h1ka classka ay siisid ayaa ka awood badan. haddaa kan color siisid cadaan kan wuxuu yahay ayaa mar walba masaxaya haddii ay labada isku mid yihiin. okay, bal classkana maxaa ka awood badanaya? markan waxaanu fiirinaynaa paragraphkan la dhaho id footer text. just wuxuu sameynaya inuu farta geeyo dhanka midigta. bal aynu id-ga tagno. id-ga footer text wax color kuma jirin sababtoo ma masaxin. color baynu siinaa markan kala dhaho blue. so marka blue siino waxa u jeedaa inuu isbedelay. even kan uu haysto class la dhaho farcad still waa blue. sababta blue noqon waxa weeye id-ga ayaa mar walba ka uniquesan class name-ka. even haddaynu kan siino id la dhaho farcad process dino id la dhaho footer text wuxuu noqonayaa blue fartiisii xagga midigtu aadaya sababtoo ah mar walba id-ga ayaa ka awood badan classka. classkuna wuxuu ka awood badan yahay tag name-ka sidaa ula socdo. sidaa darteed mar walba iska ilaali inaad isticmaashid id. marmar dhifa ayaad isticmaalsaa id-ga sababtoo haddii kale css-kaaga ma garanaysid meesha isbedelku ka dhici layahay. maanta element ayaa bedelaysaa elementigiina wax isbedelaa arki maysid sababtoo ah mid ka awood badan ayaa meesha ku jira. aad ayaa u mahadsantihiin. wabilaahi tawfiiq. mararka qaarkood markaad qoraysid amarada css waxaa muhiim ah inaad u kala horeysiisid ama isugu xajeysid sida ay xiriirka u leeyihiin waayo element walba waxaa hoos taga element kale. sidaa darteed css-kuna waxa ay leedahay rules aad elementiga kale hoos taga aad target gareyn kartid. aad ayay u fara badan yihiin laakiin waxaanu eegaynaa mid ka mid ah tusaalooyinka ku saabsan chaining selectorska ama sida la isu dhexgeliyo. tusaale halka waxaad ku haysataa articleka markaad doonaysa inaad target gareysid paragraphka hoos taga articlekaas waa iska division oo kale div oo kale. markaad doonaysa wax alaala wixii paragraph hoos taga waxaa leedahay article oo magacii element selectorka ahaa kabacdina taggii ayaad dooranaysaa. so labadanba waa tag selector laakiin kan hadduu haysto class la dhaho article dot ayaad ka horeysiinaysaa kabacdina wax alaala wixii paragraph hoos taga articleka ayaad dooranaysaa kabacdina css ruleka ayaad kaga dhigaysaa mid wax ka bedela. bal aynu tusaalaheedna eego xoogaa waxaa moodaa inay si u yaraa ka kan tahay. halkan waxaan ku haysanaa hal header hal paragraph aynu kusoo darsanaynaa. paragraphka ay ku qoran tahay anything waa ku qori kartaa. okay, so waxaa ujeedaa halkan waa division classku haysta waa header waxaa hoos taga paragraph iyo header. so waxaan doonaya inaan target gareeyo paragraphka. waxaan leenahay dot header classka la dhaho space baan leeyahay marka paragraphkiisa hoos taga sidaan iga dhig text transform farta waxaad iga dhigtaa uppercase mid far waaweyn iga dhig. so waxaa ujeedaa in halkan paragraphki noqday far waaweyn. haddaynu ka tatirno waa far yaryar haddaynu uppercase ka dhignana waa far waaweyn. halkan waxaad isticmaali kartaa text transformka uppercase sentence case lower case ayaa isticmaali kartaa. haddaa lower case sidaas oo kale ay far yar noqonaysaa. sidoo kale sentence case ayaad isticmaali kartaa. okay, bal ka waran haddaynu doonayno inaynu doorano h1ka qiyaas. waxaan leenahay header kabacdi space h1 h1ka waxaa ku dhacda fiiri fartiisii oo dhan waxay noqotay far waaweyn. markii horena wuxuu ahaa farta caadiga ah ee sentence case-ka ayuu ahaa. so haddaynu doon waxaan dhigi karnaa header h1 hakad iyo paragraph labadaba waxay iga dhigtaa far waaweyn. waynu soo soconaa sida multiple selectors loo doorto. okay, teeda kale ee kugu kalifaysa inaad sidan oo kale wax u doorato waxa weeye marka qaarkood waxaad jirtaa paragraph hoos taga class la dhaho main. marka
Paragraphskan iyo headerska hoostiga iyo classkan saameyn kuma yeelanayso koodhkan aynu qornay aynu nidhi header paragraphka sii door kaliya waxa isbedelaya ujeedid waxa weeye waa paragraphkan hoostaga headerka. sidoo kale waxyaabaha muhiimka inaad ogaatid waxa weeye element walba element ay hoostaga so waxaa kaloo isticmaali kartaa tusaale haddii waxaan direct u hoostago waynu soo soconaa calaamadan oo kale isticmaali doontaa waxyaabo noocaas oo kale ayaa isticmaali doonaa oo selectors fara badan ayaa jira oo inta aad qiyaasid ka badan laakiin waxa muhiim ah mar walba inaad ilaawin spacekaas inaad ilaawin ayaa muhiim ah. haddii space ka tagno waxba isma bedelin haddaynu ku darnana wax way isbedeleen so any rules oo dhan ayaad halkan ku apply garayn kartaa. haddaynu haddeer tusaale ahaan halkaa headerka aynu ka dhigno main waxaa isbedelaya labadan ayaa isbedelaya ujeedaan markaan main dooranay waxaa isbedelaya kuwan ayaa isbedelaya sababta waxaan dooranay mainka ayaynu dooranay. haddaynu dhahno wax alaala wixii divisionadoo dhan paragraphskooda ayaa isbedelaya marka sidan oo kalena ma fiicna inaad isticmaashid. intaas waxaan ku koobaynaa sidee loo change-gareeyaa elementiska iyadoo ay ku xiran tahay xiriirka ama relationshipka ka dhaxaysa. hore waxaan uga soo hadalnay specificity iyo sida ay u kala awood badan yihiin selectorska CSS. waxaa jirta hal mid oo kasii awood badan ID classka tag nameka waxaasoo dhan waana important. haddii aad important elementka ku dartid ama CSS ruleka ku dartid waxa uu masaxayaa wax alaala wixii selectors kale awoodii doonaan baha lahaadeen marka waa iska ilaalinaysaa inaad isticmaashid important. waxaanu isticmaali kartaa meelo dhif ah si aadan CSS kaga uusan rulkiisu uu noqon mid aad ku wareertid meesha ay wax iska bedeleen. tusaale ahaan halkaas oo kale paragraphka waxaanu ku dari karnaa color waxaanu siinaa blue laakiin halkan waxaanu ka raacinaa ujeedaan important so paragraph walba colorkiisu blue buu ahaanayaa anytime any change aad ku samaysid ama class hadaad siisid ama ID ama keligii dooratid importantigaas ayaa wuxuu dhan ka muhiimsan. so waxaa isticmaali doontaa mar dhif waxaan idinku soo daray casharkan waxa weeye meelaha qaarkood marka CSS-ka update garinaysid ama wax ka bedelaysid waxaa ku arkaysaa important meel ay ku qoran tahay sidaa darteed waa muhiim inaad ogaatid. bal aynu tusaalaheeda eegno. halkan waxaynu haysanaa paragraph fonti waa yellow paragraph halkan fontigiisu yellow yahay waxaa jira kaa keliya sababtoo ah kaasi wax kalaasa ma haysto oo aynu iska tuuri karnaa haddaynu doono. so any classeskan kale paragraphka qaar waa blue oo kan waa ID selectorkii kan fartiiso cadaan baynu ka dhignay bal halkan aynu kusoo darnay important waxaan taabanay calaamadda exclamation marka ama la yaabta important markaan doonanay color walba oo paragraphka wuxuu isu bedelay yellow. bal haddaynu doono midab kale aynu doonana waxaanu doonanaa midab amba horaba loo arag waxaanu doonanaynaa midabka la dhaho violet. so any paragraph halkan u joogto midabkiisa wuxuu noqday midabka violetka kan waa kii ID-ga lahaa kan waa kii classka lahaa kan waa kii element selectorka ama by tag nameka ahaa. so important markaad adeegsanaysid wax allaale wixii selector ah maadaama uu kan yahay tag selector oo laga awood badnaa maadaama important ku dartay cid ka awood badanaysa ma jirto kaliya tag selectorka important kuma dari kartid waxaad kaloo ku dari kartaa any kale. tusaale ahaan haddii aynu classka ku darno la dhaho farcad oo halkan dhan important isaguna wuxuu ka awood badnaanayaa wax allaale wixii jiray. so mar walba waxaa iska ilaalinaysaa inaad important u isticmaashid elementskaaga. so wax allaale wixii classka la dhaho farcad haystay ka way haystaan fartoodii cadeed waayo kan hadda farcad ma haysto kana farcad haddaynu ID bu haystaa kan aynu ku darno class la dhaho farcad ama class la dhaho farcad ujeedaa inuu ID-ga xataa ka awood batay. marka laga hadlayo specificity aad bay muhiim u tahay inaad CSS-ka taqaanid sababtaa rulekaaga meeshuu iska bedelayo iyo waxa aad update garinaysa meesha iska bedelaya waa muhiim inaad ogaatid. aad iyo aad ayaa iska yeelanaysaa inaad important u isticmaashid meelaha qaarkood ama iyadii ID-ga soo celcelisid oo isticmaashid CSS ruleska. waxaanu soo aragnay siyaabo badan oo wax loo select gareeyo. hadda waxaanu eegaynaa multiple selectors waxa la dhaho. multiple selectors waxay awood ku siinaysaa inaad ka hortagtid inaad koodhkaaga soo celcelisid ama koodhkaaga uu bato faylka xajmiga size-ka ama faylkaaga CSS xajmigiisu inuu bato oo uu noqdo mid dheer ama ay kugu adkaato in aad edit garin karto koodhkii fara bato. marka maadaama aynu hal selector doonaynay marka waxaan isticmaali doonaa multiple selectors. tusaale ahaan halkan waxaa ku haystaa paragraph iyo headers. markaad doonaysid inaad paragraph iyo header isku siisid waxa la dhaho isku color ama isku far
waxaad leedahay headerka ayaa dooranaysaa, baaragraafka ayaa hakad ayaa u dhaxaysiinaysaa, baaragraafka ayaa dooranaysaa. markaas wax allaale wixii aad gelisay oo dhan ayaa halka gelaya. marka maadaama headerka siisay font family la dhaho Georgia oo far magaceed, kana siisay font family la dhaho Georgia, maxaa ii diiday inta waxaasoo kooda qori lahaa labada line inaan dhaho headerka hakad iyo baaragraafka waxaa siisaa farta la dhaho Georgia. okay, waxaan u maleynayaa conceptiga fahanteen. bal aynu eegno. inagu tusaalaheena waxaan ku qaadanaynaa halkan waxaan ku haysanaa wax la dhaho header, halkan waxaan ku haysanaa footer. so halkan waxaa ujeedaan inaynu headerka siinay background color oo brown ah, footerkan waxaan ku siinay background color oo brown ah. bal maxay inoo diiday haddaynu isku dari karno? waxaan sameynaynaa footerkan ayaynu meesha ka taatiraynaa. so waxaan leenahay header, halkan footerka waa ujeedaa inuu isbedelay, wax kale qaadan waayo sababtoo waynu taatirnay. waxaan leenahay header hakad dot, waxaan leenahay footer. kalaaska headerka la dhaho hakad dot, haddana kalaaska la dhaho footerka waxaa ay siisaa background. so waxaan kaloo samayn karnaa meesha aynu dooranay backgroundka any waxaanu siin karnaa wax aynu ugu talagalnay inay headerka iyo footerka ka dhexeeyaan, sababtoo website-yadu intooda badan headeriskooda iyo footeriskooda xagga sare ee website-ka iyo footerkoodu waa isku mid. sidaa darteed waxaad kaloo dooran kartaa siyaabo kala duwan. halkan baaragraaf aynu dooranay, waxaan dhihi karnaa baaragraaf iyo h1 wuxuuba dhexda hay aadeen. so haddaynu halkan eegno waxaa ujeedaa inay wixiiba fartii oo dhanba dhexda aaday aan ujeednaa. so markaasoo kalena waxay kuu sahlaysaa inay xataa kuwa fara badan doorata aad tiraahdeed haddaad doontid h2 h3 hadday jiraan way isbedelayaan. marka sidaas oo kale ayaad multiple selector u dooran kartaa. keliya waa inaad u dhaxaysaa waxa la dhaho hakad. kalaaska waxaad ka horeysiinaysaa dot class name-ka, id-ga waxaad ka horeysiinaysaa hash id name, wixii haddii element tag name iyo tag name waxba kuma horeysiinaysaa tag name, hakad unbaa dhexaysaa tag name. saas oo kale ayaa usii wadaysaa. kabacdina waxaa ku apply garanaysaa css ruleka ayaad ku apply garanaysaa aad markaa ugu tala gashay. so haddii wuxuu ay yihiin id kale hakad, kalaaska ayaa magaciisa qoraysaa, hakad id hadduu yahay id-ga ayaad magaciisa qoraysaa. saasoo kale ayaa rulekaaga u wadaysaa. waxaan filayaa tusaale waxaa inoogu filan meeshii aynu ka bedelnay waxa la dhaho headerka iyo footerka oo aynu iskugu keennay hal meel backgroundkoodina bedelnay. tan waxay kuu sahlaysaa hadda ugu tala gashay inaad wax kale ka bedeshado tahdid height, waxaa siisay height la dhaho 300 pixel aan save karayno. oo ujeedaa labadoodiiba in la 300 ay durkeen. so qaabkaas oo kale ayaad markaa u isticmaali kartaa inaad dooratid multiple selectors. aad iyo aad ayay mahadsantihiin. wabilaahi tawfiiq. marka laga hadlayo luqadda css waxay leedahay cabiro kala duwan sida cabirooyinka caadiga ah taqaanid ee mitir iyo sentimitirka oo kale. css cabiradeeda waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo ah relative unities iyo absolute unities. marka laga hadlayo absolute unities waxa weeye cabiro aan isla bedelin elementiga ka sareeya ama parentiga u ah. waxaana inta badan lagu cabiraa pixel. hal pixel marka laga hadlayo deviceska smallka ah waxay u tagan tahay 1 dhibic. pixel waxaad kaloo ku garan kartaa haddii image sawir aad zoomkiisa soo dhaweyso, inta badan waxaad arkaysaa grid shaxan ah oo u qaybsan joogtaha iyo jiiftaha. shaxankaas halkii cellba waxa weeye 1 pixel. qaybta labaad waxa weeye relative unities, waxaana ay yihiin cabiro la xiriira cabiro kale oo parent elementiga ayay la xiriiraan waxa uu mar walba noqonayo. waxaana inta badan ka mid ah m iyo percentages. so cabiradan waxaanu ka eegi doonaa insha Allah faraha. waxaa jira cabiro kale fara badan oo ay css ka leedahay, laakiin marka laga hadlayo faraha iyo layout-ka inta badan waxaa la adeegsadaa pixel iyo percentages. so bal aynu eegno farqiga u dhexeeya. halkan waxaa inoogu joogay qaybteenii ahayd css-ka. waa yareeyay elementigii oo waxaan ka reebay qaybihii kale oo dhan. waxaan soo reebay hal main-ka ah oo saddexda class leh. class-kan waa pixel, class-kana m aan u bixiyay waayo maadaama aynu classeska magacyadooda soo aragnay iyo qaabka u shaqeeyaan. so waxyaabahan kale oo dhan uma baahnid, headerka uma baahnid, footerna uma baahnid. kaliya waxaynu ku tijaabin doonaa saddexda aynu ku tijaabin doonaa. xataa main-kan uma baahnid class-kan. laakiin saad tusaalaha ula socoto waxaad samaysanaysaa 3 paragraph, waxaana kala siinaysaa 3 id ama class si ay u kala garatay farqiga u dhexeeya faraha. waxaynu eegaynaa waxa weeye qoraalkan ku dhex jira bal sida ay isu bedelayaan. halkan waxaanu kaliya soo reebnay
baadhiga aynu soo reebnay oo aynu ugu talagalnay tusaalada waxa la wixii CSS kale ku jiray waa masaxaysa. Okay, waana in isku ka xiriireen muhiimad weeye halkana live preview-ga ayaynu uga jeednaa. So by default horta bogagu 16 pixel waxa uu qaataan farta caadiga ah marka aan farta xajmigeeda waxa laga bedelin waa 16 pixel oo la simid ah 1m oo la simid ah 100%. horta marka ugu horeysa maskaxda inta ku hay saddexdan class ayaynu soo qaadanaa. marka hore halkan waxaan leenahay dot pixel magaca dunta oo bixin kartaa classeska. waxaan kala soo qaadanaa class kala dhaho dot m waxaan kala soo qaadanaa class kala dhaho classka saddexaad oo ah percentage ka aynu bixinay ber dot ber. Okay, farqiga u dhaxeeya halka ka ogaanina. So haddaynu kan siino qoraalkan koowaad oo ah pixelka aynu siino waliba farta aynu horta marka hore bedelna color waxaanu siinaynaa white si ay u kala garatid. kan waxaanu siinaynaa inkastoo magacii ku qoran yahay red kan waxaanu siinaynaa yellow. saddexdan waxaanu eegi doonaa class mid walba waa paragraph ku dhex jira class. So halkan waxaan ku haysanaa background colorki. So haddaynu kan siino font size cabirka xajmiga farta ama cabirka farta waxaa cabirka farta ah 16 pixel wax isbedel ma aragtid. kan haddaan siino font size oo ah 1m wax isbedel ma jeedid. ugu dambeynna kan haddaynu siino font size oo ah 100% waxba ma jeedid. Okay, haddeer wax isbedel ma arag sababtoo ah waxaan kugu iri marka ugu horeysay browserku wuxuu xisaabiyaa 16 pixel by default. labadan dambe marka waa relative unities kana waa absolute. haddeer waxaan bedelinaa baadhiga ayaynu bedelinaa. waxaan leenahay body font size hadduu fiirsado waxa dhaca cabirka fartu ha noqdo tusaale ahaan 16 pixel. 16 pixel markaan nidhi waxba isma bedelin sababtoo waxaan nidhi by default ama asal ahaan font size-ka waxaa loo xisaabiyaa inay tahay browserku oo akhrinaya 16 pixel. inkastoo browseradu kala duwan yahay laakiin majority-gu intaas ayay u akhriyaan. bal haddaynu halkan ka dhigno tusaale ahaan 32 haddaynu ka dhigno fiiriyo waxa dhaca 32 markaynu ka dhignay waxa u jeedaa pixel waxba isma bedelin laakiin waxa isbedelay m-ki unitiska way isbedeleen percentage-kina way isbedeleen waliba way isleeyihiin labadan. waxaan filayaa inay isleeyihiin sababta isu bedelan waxa weeye pixel waxaanu ku soo sheegnay inuu yahay absolute units islama bedelo waxa la dhaho root elementiga ama elementiga ka sareeya kaliya body maaha. haddaynu class-kan xataa bedelno mainka labadan kale isla bedelaya laakiin pixelku isla bedeli maayo. Okay, sidee baynu pixelka u soo gaarsiin karnaa labadan kale waa inuu dhahnaa isagana waxaa ka dhigtaa 32 sidaa darteed haddeer saddexdeeni way isla ekaadeen. Okay, in other words marka hore waxaynu ogaanay inay kuwani mar walba yihiin wax la dhaho relative unities oo ay la xidhiidhaan waxa laala wixii parent elementiga ka sareeya waayo baadhigu wuxuu ka sareeyaa labadan oo dhan. haddii division-kan xataa aynu target garayno labadan kale way isbedelayaan. Okay, maadaama aynu ogaanay by default inuu yahay 16 pixel waxaynu ka boodinaa 16 pixel kan halkan waxaynu ka dhiganaa comment ayaynu ka dhiganaa waayo waxaan leenahay by default waa 16 ma baahninba. Okay, haddaynu pixelkan ka dhigno 32 pixels waxaan leenahay ama aynu ka dhigno 24 pixels oo ah 16 lagu daray 8 oo ah 16 plus 16 half oo ah 24. kuwan sidee baynu u geli karnaa waanu leekaysiin karnaa pixelkan. waxaan dhihi karnaa maadaama aynu u baahannahay 16 lagu daray 8 waa 24 sidaa darteed 8 waxay tahay 16 ka barkid. so waxaan leenahay 1.5m oo ah root elementiga oo ahaa 16 lagu daray 16 halfkeed oo 0.5 16 waxay noqonaysaa 8 sidaa darteed waxa weeye 24. so waxa ujeedaa in kan iyo kan isla kaadeen kana sidee baynu u leekan karnaa waxaan dhihi karnaa inta badan 150 that means 100% oo 16 ahayd iyo half oo 16 ah ayaynu ku darnay. sidaa darteed inta badan adeegsamaysa percentages laakiin m ayaa loo adeegsadaa si ay fartu mar walba ula socoto waxa la dhaho root elementiga. mid kale waxaa jira la dhaho rem kaasoo inta badan wuxuu la shaqeeyaa baadhiga uu ka sareeya html kula shaqeeyaa waynu arki karnaa isagana insha allah. so ninkaan ku talagalay inaad search garaysaan marka cabiradu saas isu bedelaan. haddii kan ka dhigno 16 lagu daray 16 oo ah 32 pixels waxaa rabtaa inaad kuwan oo kale ka dhigtid kan leegaysa. sidaa darteed kan maadaama uu yahay 32 ah 16 plus 16 waa inaad doorataa 2m oo ah 2 times relative unitieskii. so 16 lagu daray 16 waa
32 so waa u jeedaan isla kaadeen kana saynu leekaysan hadii kana boqolkiiba 200 okay marka qaab noocaas oo kale ay u shaqeeyaan CSS unitiesku way jiraan kuwa fara badan laakiin in saddexdan ayaa ah saddexda mar walba soo noqnoqda ee la isticmaalo aad iyo aad ayay u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq